waxay oran jireen islaamihii hore ballaysani birka adag inaan maanta oo dhan saacado badan lixda hal la doorto iyo yaan la dooran waxaan isiri aqalkaan u boqo waxaan dhamaa sidan isugu madax adkaataan haddii kuwii horena oran waayeen warbal maaragtay gruubka leh berri hal la doorto berri iyo waxba ma kala ah iyo inaan ku ballaysimin arrin sahlan oo aynu maanta oo dhan isku tuurtuurno waxaan qabaa inaan soo fududayno berri iyo maanta waa isku mid laakiin maadaama aqalkii inala sinaana uu doortay waxaan jeclaan lahaa inaguna ballan aan brief u baxno hal maro aan dibadda u baxno waxna isku soo maaragtay garanno waxaan kala oran lahaa haddaa agenda laynoo qaybiyey aqalkeenuna waa aqal stateka aan isleeyahay waa highest position oo maaragtay Soomaaliya shaqo badan ina sugayso waxay ahayd ajandaha markii laynoo dhiibay inaan qofkii raba sidan oo kale ilaan waa hadda wax arhagoo la soo dedejiyay weeye in la yiraahdo ku dara inaan lixdii qofna maanta dooran aniga runtii waxaan ku jiray dadka freshka ah had iyo jeer meesha yimaadaan first day-ga dad iska attention badan yihiin korkaana waa kala soconay baarlamaanada iyo waxa ka dhaco waxaan qabay in bariba dadka la soo doorto caawa intaan sarag oo nahno hebel ba ama heblaaya noo noqonays laakiin waxa ay muuqato xoogaa turidda aan u turayno wadanka iyo inaan maaragtay loo kala kicin iyo in wax la dedejiyo waxaasoo dhan waa wax mas'uuliyadeena iyo waxaan u dhaaranay ah dalka inaan ka saaro xaaladdu maray waa wax inaga go'an waxaan u maleynayaa inaynan ku kala duwaneen haddana iyadoo taasi jirto baa xoogaa maaragtay loo arkay berri iyo maanta inay isku mid yihiin marka waxaan soo dhaweynayaa qolo hadday tanaasulayso qolo unbaa tanaasulaysa bilna nus saaco yar baxno aqalkana aynan ku ballaysimin madaxaday waan idin salaamayaa dhammaantiin horta khayrul umuuri awsatuhaa mar kasta oo saano kale wax la isugu qabsado waxaa fiican in wasat aan la isugu nimaano wax weyn hadda maba isku hayno inkastoo ishaynta laftirkeeda ay wax wanaagsan tahay oo waxa weeye amruhum shura baynahum ilaahay yiraahday oo hadda waxa aan wadno dhan wax wanaagsan oo qurux badan ay tahay oo aanu tashanaynay laakiin Soomaali hadaan nahay ibn aadan hadii leeyahay waxa nagu abuuran degdeg waxba yaan degdegin saacado badan baa haysanaa 12 baa la marayaa ilaa 3 galabnimo waa joogi karnaa working hours ma haysanaa ilaa 4 joogi karnaa waxa weeye qaraar cid gaaraysa ma lahayd hadii la doono gacantaaba dee loo taagi karaa oo decisionka lagu gaari karaa waxaan aad u jeclaystaan markii hore waxaan lahaa warmaan ayar soo akhrino oo tartiibo maxaana loo dadajinayaa war dadkii hore waxaad moodaa inay nawadaan laakiin markii senator Samson iyo senator Saciid ay kala rafaagadayeen in badan baan fahmay marka wixii inaan liqnaa loo baahan yahay laftirkeena oo aan daw iyo way qaadano waxa weeye bugaagtan maadaama ay yihiin wax dib loo review gareyn doono oo loo baahan yahay in golihii shacabku nala review gareeyaan dee waqtiba looma hayo marka dee wax diidaya hadda inaan inta banaanka u baxno state walba majority-giisii uu joogaa la fariisto oo state walba maxaa la lahaa qofkiisii uu soo select garaysto ilaahu ma 1 hour qaadataan af Soomaaliga buuga ku qoran waxaan ku akhrin karnaa 1 hour qofkii raba inuu akhriyo 1 hour 30 minutes ha qaato ha akhriyo let us take 2 hours banaanka aanu baxno labadeena saacadood waa 6 saac aan soo tukano 8 saac baraan isu soo noqono balaayo ma jirto wax fiican baan wadnaa barakallahu fiikum khayr baa idin rajaynaya horta shaqada maanta nagala rabo waxay tahay inaan guddigii sameeyno kaliya oo isteediyada intay gooni isula baxaan xubnihii matali lahaa oo guddiga doorashada aqalka sare ku matali lahaa ay soo sameystaan xeerkan hadda gacanta aan ku hayno waa xeer wada jir ah oo labada aqal ah ma loo qaybiyay oo ka hadlaaya doorashada guddoonka iyo doorashada madaxweynaha waqti u haysana inaan soo aqrino wax hadeertan go'aan laga gaarayo ma ahan barkay labadii aqal inta isku yimaadaan ansixiyaan la rabaa guddoonka iyo maamulka aqalkaan la rabaa inay ka soo shaqeeyaan shirkaas soo dhici lahay labada aqal ah midda kaleeto xeerkan waa xeer hoosaad doorashada kaliya ku eg xeer hoosaadka aqalku noo diyaarsan yahay wuu yaalaa markaan isku imaano oo gudiyadii aqalka la sameeyo oo ugu horeeyo guddiga xeer hoosaadka ayaa hadii loo baahdo ay senatarada cusub oo maaragtay aqalka ku soo biiray inay wax ka bedelaan maalina loo sameyn karaa agenda loo sameyn karaa guddiga ka soo shaqeynaa xeer hoosaadka oo la dooran doono ay markaas amendment lagu sameynaa aan u codeynayna waa laba xeer ee kaliya xeerka aqalka waa noo diyaar guddigaas ka shaqeey doona doo ilaahay admo kanna in labada aqal ay ansixiyaan ay u baahan tahay oo doorashada lagu galo marka hadda aniga waxaan qabaa
sida la isku raacay in ay doorasho in la aado oo degdeg loo aado inay muhiim tahay annaga dhan waa ognahay waana loo baahan yahay marka yaan lagu kala kicin oo maaragtay hawsha yaan la isku qaldino xeer hoosaadka iyo guddiga aysan isaga keen milmine intaan isteedyadana baxno oo isteed kasta hoolalow leeyahay aqalkee tagno qofkii matali lahaayo 6 xubnood oo guddiga doorashada gali lahaay ha soo maaragtay ha soo qadimo maanta si kalfadhigeena maanta ku aan fariisanay oo miro dhal u noqdo oo ajandaheena oo u dhaqan galay intaasaan soo jeedin lahaay aad u mahadsantihiin senatarada aqal ku cusubna waa soo dhaweyneynaa waxba ha keeganin oo ha dareeminin maaragtay meesha inaad ku cusubtihiin annaga in yar oo 15 xubnood aan sida la sheegay adinkaa wadaad naga badan soo dhawaada run ahaantii alxamdulilah maanta aad ugu faraxsanahay maadaama aan fadhiisanay kala fadhigii koowaad ee kulanka koowaad baarlamaanka 11aad ee golaha aqalka sare waxaan dhihi lahaa horta senatarada naga horeeyay waan dhownahay sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin maadaama aan nahay senatarada cusub waxaan codsan lahayn oo aan dhihi lahaa in la siiyo hal maalin oo anagana aan kusoo fiirino buugagta la nasiiyay xeer hoosaadkii aan kusoo akhrino insha Allah. Assalaamu calaykum ma aanan soo istaagin waa soo dhaweynayaa in guddiga hadda la saaro 6 xubnoodna laga dhigo waxaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye in lagu ilaaliyo 0.5ka maxaa yeelay isteedyada qaar ayaa waxaa ka soo galo birsami aniga aan ku dalbeedaan ka imi halkaas teeda inta badan aan ka soo galnaa marka waxaan rajaynayaa inaysan qabaa'ilkii ku soo noqonin qabaa'ilkana lagu saleeyo waxba la isu qarimaayo waxa aan ku joogno waa la wada ogyahay marka aad u mahadsantihiin